barasaabka cusub ee gobolka Togdheer ee dhawaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu soo magacaabay gobolka Togdheer ee Xamse Maxamed Cabdi ayaa saakasi weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Burco boqolaal kamid ah bulshada Burco isugu jira waxgarad dhalinyaro aqoon-yahano haween iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socday laamaha dawladda ayaa kaga hortagay degmada Qoyto oo 20 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Burco iyagoo lulaya caleemo qoyan isla markaana ku galbinaya gaadiid tiro badan barasaabka cusub ee gobolka Togdheer oo xukuumadii hore ee madaxweyne Silaayo magacaabay barasaabka gobolka Gabiley ayaa waxa gobolkaasi ka soo galbiyay wafdiga horkacayo maayirka degmada Gabiley waxaana kulmada soo dhaweyn ku qaabilay wafdiga horkacayo barasaabka cusub ee gobolka Togdheer dadkii tirada badnaa ee kaga hortagay degmada Qoyta waxaana hadaladoodii kamid ahaa Togdheer waxaan ugu soo dhaweynaa wax qabadkii iyo amaantii laga soo gudbiyay gobolka Gabiley waxaan soo dhaweynaa gudoomiyaha cusub ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland noo soo magacaabay annagoo aad iyo aad ugu hambalyeynaa gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi waxaanu mar labaad u mahadnaqaynaa waftiga ballaaran ee labada soo dhaweyneed ee isku dhacay ee gobolka Gabiley oo sharaf iyo xusuus u mudan umqaatina u ah waxa uu ka soo qabtay sharafta uu xambaarsan yahay mid labaad oo tii gobolkiisa ka sareysa Maxamed Amiin iyo xildhibaanadiisa iyo waftiga uu hogaaminayana waan u mahadnaqaynaa ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu magacaabay xilka gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi waxaanu ku leenahay gudoomiye ku soo dhawo gobolkaagii degmadaadii iyo dadkaagii reer Burco gobolkii aad ku dhalatay oo maanta fariin cad u ah qaranka Jamhuuriyadda reer Soomaaliland sida cad ee lagu soo dhaweeyay ee lagaaga baahnaa ee loogu baahnaa maanta inaad gobolka Togdheer gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer Mr. Xamse Maxamed Cabdi waanu ku leenahay ku soo dhawow gobolkaagii aad ku kortay ee aad u dhalatay ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo magacaabay waxa kale halkan mahad ugu celinaynaa haddaan nahay reer Togdheer madaxda iyo xildhibaanada oo maayirka degmada Gabiley hogaaminayo iyo aqoon-yahanka iyo uqaasha ka timi ayayna waxaan u soo dhaweynaynaa gobolka ku soo dhawaadaan leenahay waa nagu leedihiin sidaa wanaagsan ee aad noogu soo galbiseen barasaabkii gobolka geesta kale barasaabka cusub ee gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa ka bahadnaqay soo dhaweynta ay ku qaabileen bulshooyinka gobolka Togdheer runtii maanta waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa oo aan idinkaga mahadnaqayaa dadweynihiina sharafta badan ee reer Togdheer sida wanaagsan ee qiimaha leh ee aad noogu soo dhaweyseen gobolka noogu soo dhaweyseen iyo sida aad u soo dhaweyseen waftigii ila socday ee uu hogaaminayay gudoomiyaha degmada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo xildhibaanadii golaha deegaanka waxa kale oo isaguna nala socday xildhibaan golaha baarlamaanka Maxamed Cali Xirsi xildhibaan Obama aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa insha Allah biidnillaahi baari hadalka wixii kale ee dardaaran iyo talo iyo hoga tusaaleyn iyo duco intaba ugu dambeyntiina waxa loo soo galbiyay barasaabka cusub ee gobolka Togdheer magaalada Burco gaar ahaan xarunta gobolka ay ka dhacaysay munaasabadii xil wareejinta Khadar Cabdirasaaq Saleebaan Khadar Hanad Bulsha TV magaalada Burco.